maxay duuliyaashu ugu wargeliyaan rakaabka saaran diyaaradda 30 daqiiqo ka hor waqtiga la qorsheeyay degitaankeeda duuliyaashu waxa ay leeyihiin sharciyo adag oo ay tahay inay u hoggaansamaan balse kicinta diyaaradda iyo soo degideeda ayaa ah marxaladaha ugu halista badan ee duulimaadka duuliyaashana aad ay muhiim ugu tahay inay iyagu mas'uuliyad iska saaraan nolosha boqolaalka rakaabka ah ee saaran diyaaradda ay duulinayaan ugu horeyn ujeedada laga leeyahay ayaa ah in lagu wargeliyo shaqaalaha in ay diyaar u tahay inay degato diyaaradda iyo in lagu wargeliyo qof walba oo rakaab ah inuu xirto suunka haddii ay dhacdo xaalad halis ah ama qalqal waxaana jira qaanuuno iyo sharciyo dhigaya in ay raacaan duuliyaasha diyaaradaha kaxeeya marka la joogo Yurub qaanuunka waxaa lagu magacaabaa Israel Flight Deck marka la joogo Mareykankana waxaa lagu magacaabaa Israel Cockpit Rule labadan qaanuun ayaa dhigaya ka hor marka ay diyaaradda joogga ay ku socoto ay hoos uga degato 10,000 oo tilaabo ama fiid in rakaabka diyaaradda saaran iyo shaqaaluhuba ay diyaar garoobaan suunkoodana xirtaan meeshii loogu talagalayna ay fadhiistaan taas oo micnaheedu yahay in la hakiyo dhaqdhaqaaqa dadka sida cunista cuntada dhageysiga muusikada hadalka badan gabi ahaanba waxaa mamnuuca muddadaas wax walba oo dhaqdhaqaaq ah si uusan qalqal iyo jahwareer ugu imaan shacabka saaran diyaaradda marka ay degayso waxaa laga mamnuucayaa dadka rakaabka inay mashquuliyaan duuliyaasha kaxaynaya diyaaradda marka ay dhacdo xaalad degdeg ah mooyaane waana taxadar caalami ah oo la sameeyo 30 daqiiqo ka hor waqtiga la qorsheeyay degitaanka diyaaradda fariin ku socota taageerayaasha kubadda cagta qoraaga reer Belgium ee Jean-Philippe Toussaint ayaa sheegay in dadka ku nool magaalooyinku ay yihiin laba nooca hore waxa uu aadaa maktabadaha kan labaadna waxa uu dareeraa garoomada kubadda cagta maktabadaha iyo garoomada dhexdoodana waxa ku yaala darbi qar weyn leh oo aan la kala arki karin sidoo kale qoraaga Bogis ayaa ku tilmaamay nacasnimo in dad waaweyn ay u sacabtumaan 22 qofood oo eriyanaya maqaar la soo aariyay dhanka kale hadii laga eego kubadda cagta waa sheeko ka socota gudaha garoonka 90 daqiiqo laakiin ay ka dhashaan sheekooyin badan oo muddo sii socda marka laga soo baxo garoonka waana midaas waxa ay u yeelatay taageerayaal badan maadaama bini'aadamku u sameeysan yahay sheeko jacayl dadka aan kubadda cagta waxba ka aqoonin gab ay ka dhahan ama waxay isha soo mariyaan ugu yaraan 11 qodob oo ay sheekada kubadda cagta uga qayb qaadan karaan haddii ay si kaliya ugu timaado sida magaca tababaraha kooxda inay ciyaartu socoto 90 daqiiqo iyo inay soo xafidaan halku dhigi Marcel Reef ee ahaa mar walba oo ay ciyaartu sii socoto waa mar walba oo waqtiga ka harana uu sii yaraado waa indhaha isku qabo oo dalaq dheh haddii uu soo gaaray muuqaalkan like dheh